ka waran haddii adiga oo haysta lacag ka badan 880 kun oo dollar yacni lacag ku dhow 1 milyan oo dollar aad ku nooshahay nolol derbi jiifnimo ah oo aadanba war u hayn in aad hanti fara badan leedahay. dhacdada aan maanta ka sheekayn doono waa dhacdo yaab iyo makaag leh. waa haweeney waddanka Mareykanka u dhalatay oo ku nooleed xarumaha dadka bilaahoyga ah iyo jidadka. laakiin haweeneydan waxa akoonka ugu jiray lacag ku dhow 1 milyan oo dollar. waan huba isla markii waxay isweydiinaysaa maxaa sababay in qof akoonkiisa ay ku jirto lacag ku dhow 1 milyan oo dollar uu ku noolaado nolol derbi jiifnimo ah lana noolaado dadka bilaahoyga ah ee duruufaha noloshu ciileen. sidee ayay wax u dhaceen? saaxiibayaal, waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto idinkaga codsanayaa intaan xalqada guda gelin in haddii aad kanaalkayga hadda ku cusub tihiin muuqaalkan aad ka heshaan in aad like iyo subscribe ii saartaan. haddii aad horey ugu taxnaydeenna in aad like ii saartaan muuqaalka. sida ay qortay saxiifadda The Independent ee waddanka Ingiriiska laga leeyahay, haweeney magaceeda la yiraahdo Catherine Boone oo waddanka Mareykanka u dhalatay ayaa dhimatay iyada oo ku nool xarun ay degan yihiin dadka bilaahoyga ah. haweeneydan ayaa waxay ku dhimatay da'da 49 sano jir iyadoo aan ogeyn in bangiga ay u taalo lacag ku dhow 1 milyan oo dollar. gabadhan ayaa aabaheed wuxuu u sheegay TV-ga KTW News in gabadhiisu markii hore ay ku nooleed nolol aad u degan oo aad u wanaagsan, laakiin sanadihii u dambeeyay ay ku nooleed maalmo madow oo aad u kharaar. haweeneydan ayaa hooyadeed waxay dhimatay sanadkii 2016. dhimashada hooyadeed wixii ka dambeeyay maskixiyan ayay wax u noqotay. aabaheed ayaa wuxuu sheegay inuu ku fashilmay inuu dareemo in gabadhiisu ay maskixiyan wax u noqotay, wuxuuna yiri waxaan u maleyn jiray in mukhaadaraad sa u galay. gabadhan ayaa hooyadeed waxay uga dhimatay dhaxal gaaraya ilaa 884 kun oo dollarka Mareykanka ah, yacni waa lacag ku dhow 1 milyan oo dollar, which handles unclaimed money from estates where heirs cannot be located or refuse payment. It's not clear if Kathy knew. bangigii ay lacagtu taalay ayaa marar badan isku dayay inay haweeneydan soo helaan si ay dhaxalkeeda ugu wareejiyaan. iimaylo fara badan ayay u soo direen, baafino iyada lagu raadinayo ayaa bogga hore ee joornaalada lagu soo daabacay, telefoonkeedii ayaa kumanaan jeer la soo wacay, baraheedii bulshada ayaa laga soo raadiyay oo lagala soo xiriiray, laakiin isku dayadaas oo dhan fashil ayay ku dhammaadeen oo gabadhan lama soo helin. cid meesha ay jirto garanaysayna ma ay jirin, haddii ay ahaan lahayd aabaheed, asxaabteedii, carruurteedii, walaa cid kale. haweeneydan ayaase mar dambe la ogaaday waxay joogi jirtay xarun ay ku hoydaan dadka derbi jiifyada ah ee aan hoyga haysan ee duruufaha nolosha la dala dhacaya. ugu dambeynna halkaas ayay ku dhimatay iyadoo u dhimatay xanuun dhanka neefsashada ah. meydkeedii markii isbitaalka la keenay oo dib loo baaray haweeneydan cidda ay tahay ayaa la ogaaday inay tahay haweeneydii la raadinayay muddo fara badan. dadkii bilaahoyga ahaa ee ay la nooleed ayaa waxay sheegeen in haweeneydan ay ahayd haweeney aad u naxariis badan oo aad u wanaagsan. mid ka mid ah dadkii ay wada noolaayeen ayaa wuxuu yidhi, waxaan nahay dad wanaagsan laakiin ay duruuftu meesha dhigtay. iyaduna waxay ahayd gabar naga mid ah. hantida ugu weyn ee aan haysto ee ugu qaalisan waa mid ka mid ah sawiraantii Catherine. Catherine aad ayaan u jecleen annagoo dhan. Very giving, very loving. What a lot of people, including Donnie, didn't know was that sida ay ku warantay warbaahintu, 2 carruur oo ay dhashay haweeneydan ayaa soo dalbaday in lagu wareejiyo dhaxalkii ayaydood ka dhimatay maadaama hooyadood ayna calfan. waa arrin yaab iyo makaag leh in qof hanti fara badan bangi u taalo oo silcaan iyo saxariirtan u dhinto isaga oo aanan ogeyn in hantidaas 1 milyan ee dollar ku dhow ay bangiga u taalo. dabcan haddii la ogaan lahaa hantidaas akoonka ugu jirta haweeneydan intii ay nooleyd waa lagu daaweyn lahaa marka hore, iyada iyo qoyskeeduna nololtii ay ku dhimatay dhaanta ayay ku jiri lahaayeen qiyaastayda. saaxiibayaal, waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto idinkaga codsanayaa in haddii aad kanaalkayga ku cusub tihiin muuqaalkan aad ka heshaan in aad like iyo subscribe ii saartaan. haddii aad horey ugu taxnaydeenna in aad like ii saartaan. sidoo kale waxaa jira page aan ku leenahay Facebook-ga oo isla magaca kanaalkan wata waa Yamyam Balase, kaasoo aan si maalinle ugu soo gudbino dhacdooyinka yaab kale
ee warbaahinta caalamku ay ka qorto dunida daafaheeda. Waa noo xalqad kale oo xiiso leh iyo nooli kulantee. Waa maasantihiin guuleysta saaxiibayaal.